waxaad ku dhufanaysaa start buttonka then waxaad ku dhufanaysaa computer baad dul tegaysaa right click baad siinaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa meesha ugu hooseysa la dhaho properties markaad ku dhufatid waxaad arkaysaa computerka warbixintiisa sida kasoo qaad computerka Windows editionka Windows 7 Home Basic iyo copyright iyo sanadka la soo saaray 2009 Microsoft Corporation qaybtan waa system info systemka ratingkiisa waa kana processorkiisana waa kana waa Intel Celeron CPU 877 1.40 gigahertz waa double CPU RAM kana installed memory RAM waxay u taagan tahay random access memory oo 2GB ah system typekiisna waa 64-bit system marka qaybtani aad bay muhiim u tahay waxay ka caawinaysaa in aad wax ka ogaato computer cusub markaad iibsanayso waa inaad fahantaa sida loo fiiriyo computerkaaga inta uu ka kooban yahay sida RAM-ka ama CPU-ga intuu yahay iyo system type uu yahay iyo Windows-ka noocu yahay qaybtaana waa Windows activation la dhahaa waa qaybta laga ogaado computerkaaga in activate gareysan yahay saa ka aragtid hadeertaan computerkan ma activate gareysna 30 days to activate baa ku qoran markii la activate gareeyo waxaad ku arkaysaa activated meeshaan isku bedelaysaa meesha soddonka ku qoran tahay waxay isku bedelaysaa activated hadeerta inaad activate gareysidna waxaad ku dhufanaysaa change product then internetkaad ku xiraysaa kiiga gelinaysaa kadibna activate baa ku dhufanaysaa